وانجعل غيد غشاديسي روحي ونفتيدي وقلبي وقودين يا غيب سيدي كوبت عندلي وكلام دبو جاليستان وقد تحتالي يوم عدك وانكل لما دوني ذا لقولون يغوخي ما دير يا غير لحن برفاي ولقو ما وقت مع كليل كذير ربي باي سوق ديني تريعي ميلاد ديفتين دايخي جلي عامر قدك كما درقاياني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مال والبو أجوكتان سومالي محمدي وإذن سلام يا يحل والبو أيدين تحي كل يعني حتى كيس كافريكان جوجا أو يوغندا جوجا مغارة كامبالا حينو تحي عصر بينو تحي marka idinku xilli walbo idin tahay daafaha caalamka meel walbo Soomaaliya ka joogtaan ayaan idin leeyahay waqtigaad ku sugan tihiin iyo meesha joogtaan Allah idinku nabad yeelo hana idin wacnaado insha Allah taala mar kale iyo walaashin shukr muuse oo soo noqotay oo barnaamij kale idin wada ayaa maxay ahaydaan rabaa hadda inaan barnaamijka iyo wixii aan rabay inaan ka hadlo marka waxaan ka hadlayaa doorka haweenka ama hooyada Soomaaliyeed hooyade oo gabardhe oo maxaa la dhihi jiray magaca doontaba u bixi haweenka Soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin nolosha iyo xaaladda qoyska iyo bulshadaba Soomaali haddaan nahay markeenii hore walow ay iska jiraan rag maaragtay wiilasha iyo gabdhuhu ay u siman yihiin haddana Soomaalidu waxay ka siman tahay jacaylka wiilasha iyo geela sababtay uga siman tahana waxa waaye asalkeen waxa waaye waxaan u badnayn waxaanu ahayn raacato wadadka xoololeyda ah iyo beeraley oo webiga jiinkiisa degan ama xataa dad aan webi haysanino roobka ilaahay keeno maxay ahaday intay beer ku qotaan alxamdulillah nimcada ilaahay wixii alla ugu talagalo u soo baxa maaragtay meeshaas ku qota maadaama noloshii hore ee baadiyaha asalkeenu ahaa ay ahayd nolol adag oo ku tiirsan maxay ahaday dad adag oo xoog laho maaragtay beeraha fali karo xoolaha raaci karo ceelasha maaragtay ka soo aroori karo xoog wixii dhanba ay xoog ku dhisnaayeen waxaa la fadli yeeli jiray oo mudnaanta koowaad la siin jiray wiilasha dunyada la dhaqdana waxa mudnaanta koowaad lahaa geela sababtu waxa waaye geeluna waa safiinatul sahara meelaha kulul maadaama dhulkeena uu dhulka qaboobaha kamid ahayn dhulka diirimaad kale uu kamid yahay kuleelkiisana alxamdu shukr rabbil alamin ilaahay baan noo gargaaray oo ma aha maaragtay kuleelka carar ah sidaas maaragtay inta xoog leh ay safka hore ugu jirto ragga iyo geela balse markii dadku magaaloobay oo magaalo la soo galay oo wax la bartay oo waxbarashada markii hore wiilasha la geyn jiray ama malcaamadaha dugsiyada quraanka ha ahaadaan maragtay waxbarashadan kale maadiga ah ee iskuulada lagu dhigto wiilasha markii hore loola ordi jiray oo la tamadin jiray in wiilasha la geeyo gabdhuhuna ay guryaha fadhin jireen kana shaqeyn jireen haddana markii dambe تطورك الدنيا السعودية هو مركز السعودي وحكينا ولي لي قبل الصوماليين إلكتان إسكولدي وحا لأجالي دور كهوية الصوماليات قبل الصوماليات أي وجرت بالشدة مركز أي سفي عن صو شعب حدا ولو حتى بديه أي محي هذي وحول البقى بنجرينا الرير كهين جرينا محي هذي أرجع الراعي جرينا عروف تدل جرينا هين جرينا الرير كدق جرينا بدر كهجاجين جرينا ومحي أقل هذا لسه جرين haddana saas ay tahay laguma qiimeyn jirin waxa ay qabtaan waxa loo haystay in dad guri iska fafadhiya oo dhibaato aan gelin ay yihiin
laakiin runtu waxay soo baxday markii la magaaloobay gabdhihii wax barteen wiilashii wax barteen maaragtay dadkii baadiyaha ka yimiday reer magaal intoodii badan ay noqdeen doorkii gabdhaha markaasuu si saxa usoo baxay oo saaniya intii wax baratay ee shaqaysatay intay gabdhaha yihiinna waxaa wax ku dheefi jiray waalidkii dhalay iyo guriga ay ka dhasheen markay guursadaanna xaaskii odagii ay guursadeen iyo maxay ahayd caruurteedii wax ku dheefaysa haddayna qofku aqoon aanay lahayn ilmaha yarkaa iyadu dhashayba waxa la soo dhigay iyo waxa uu baranayo iyo waxay kala bixin karta ma laha laakiin markay iyadu wax taqaan hooyo keen aan muraajacada maaragta homework kula sameeye maxaa maanta lagu soo dhigay itusi canug iskool u goyn kara male waatan meesha Soomaalidu ay ka tiraahdo gabar wax baratay waa bulsho wax baratay waxay bulsho wax barato u tahay warshadii wax soo saarka ayadaa ah maadaama warshadii wax soo saarka ay tahay oo warshadii dadka soo saaraysay wax la soo saaraa dad baa ugu qiimo badan ilaahay baa abuura laakiin hooyadu ku dhex beeray soo dhex marsiyaa maxay ahayd maadaama warshad noocaas ee dadkii bini'aadankii ugu karamaysnaa caalamka ay warshadoodii tahay soo saaraysay ayadii ayaa waxay noqotay haddii ay wax baran weysay qof jaahila tahayna reerkaas way la haraysaa dhinac walba ula haraysaa fahamkeeda yaraanaya cilmigu maskaxdu furfuraa adduunku ka dabageeyaa wax aanu qofka jaahilka fahmin ba fahmaysa maxay ahaday waxaas aad fahmaysana naftaada waxaad wax ku dheefaysa gurigaaga wax ku dheefaya qoyskaaga wax ku dheefaya awlaadaada wax ku dheefaysa khaasatan markii hadda la qaxay ee dagaalada sokeeye Soomaaliya ka dhaceena waxaaba soo banbaxday ninaan gabar lahayn inuu gablaba ninaan gabar lahayn oo dhoofkii la dhoofay iyo qixii la qaxay iyo intii dalka joogtayba ninaan gabar lahayn kama soo bixin ninaan gabar lahayn waa ku haray meeshaas ku haray kama soo bixin intii dhooftayna waa la ogaa gabdhaha iyo wiilasha dhoofay waxa aad u calool jilicsanaa wiilal badan oo baariyaal way jiraan ma aynan wiilasheena aan wax maaragtay aan duudsinayo xaqooda wiilal badan oo baariyaal oo reerkoodii wax ku dheefay oo dhulka ka qaaday oo wax walba u taray way jireen ilaa haddana way jiraan laakiin majority-ga gabdhihii iyo wiilashii waxa niyad jilicsanaaday maadaama wiil iyo gabar marka horeba ayna isku jiljilic ahaynin waxa niyad jilicsanaaday oo haddii reerka wax laga soo sheegay iska ooynaya oo maanta hadday waxay u dirto weyso maaragtay dayn soo qaadaya oo meel walba galay oo ka baxay gabdhihii dhoofay dalka intii joogtay dalkan anu dadka dalka joogaan ka mid ahaa dalka intii joogtayna waxaa soo baxay reerihii gabdhaha lahaa waay sabab dagaalada kamayna qayb gelin gabdhaha in yaroo gaaban oo aan maaragtay percentage geli karin oo waxa ka maaragtay taageeri jiray maaragtay waa iska jirjiri jireen waxyaabaha dagaalada dhici jiray laakiin majority-ga markii la yiraahdo hooyada Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed kamanay qayb gelin dagaalka adin ugama qayb gelin ma garatay wax dheefkeedana ugama qayb gelin marka waxa dhacday intii dalka ku hartayna waxa dagaalamayay oo dagaalka kicinayay marba nooc lahaa waxay ahaayeen rag gabdhuhu dagaalka kuma jirin bal caks dhinaceeda taa bedelkeeda reerkay la qaxayeen dagaal markuu dhacaba caruurta afka ku qaad xagga u carar adoon aan awood dhaqaale haysanin adoo meel aad u carartay aadan aqoonin adoo gaadiid ku qaada haysanin rafaad iyo silic inay ku dhalaan dariiqyada ayaa maaragtay gabdhihii ay muteen xiliyadii adkaa ee dalku soo maray markii xoogoo yar laga soo baxay taas welina rafaad ka jirana ayaga banaanada wax ku iibin jiray koleyjaad ku tahay waanan dhiiri gelinaynin oo mar walba darooga ah laakiin koleyjaad ku tahay qofba meeshay ka gashay mid barax meel ku iibisa caana ku iibisa mid meel jaad ku iibisa mid miisir meel dhigata mid dhuxul gada mid yaanya gada qof walbaaba waxbuu reerkiisii wuxuu door bidayay inuu uga soo saaro dhibaatada uga soo saaray majority-ga badanaa ragga Soomaaliyeed guryahay fadhiyeen caruurtay hayeen xilligaa waxa ka soo baxay gabdhaha Soomaaliyeed ayaa xilliga adkaa ka soo saaray Soomaalida intii dalka ku hartay intii dibadda u baxdayna majority-ga ayaga ka soo saaray dhibaatada oo intay soo shaqeeyaan ceyr qaateena shaqeeyana wax walba meel walba ku dhaceena maxaa la dhihi jiray usoo dirayay reerahooda hadday qoyskoodii tahay iyo hooyadeedii aabaheedii intii la dhalatay iyo hadday tahay caruuray iyadu dhashay ka tagatay iyo nin ayada qabaa intaba gabdhaha Soomaaliyeed ayaa lagu dhaqnaa
waxaan rabaa inaan hambalyo iraahdo haween weynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan kartida iyo hufnaanta ay la soo baxeen kartida iyo hufnaanta ay xilliyadii adkaa la soo baxeen weligoodna ay lahaan jireen laakiin hadda Soomaalida dadka waxa la yiraahdaa qaarna waa indheer garad qaarna waa indhow garad ya intaan indheer garad ka ahayn ma ogeyn in gabar Soomaaliyeed saan noqon karto laakiin markii runtu timiday oo la arkay gabdhihii Soomaaliyeed xaaladii adkayd siday uga baxeen meel walba ay joogaan iyo siday reerahooda iyo caruurahooda iyo ragooda iyo u barbar istaageen waalidkooda iyo walaalahooda ayaa la wada qiray gabadha Soomaaliyeed in ay tahay dheeman aan la heli karin ilaa iyo haddana ma ayna dhigin shaqadii ma ayna dhigin dadaalkii ma ayna dhigin waxqabadkii wali way taagan yihiin wax intaas ayaan rabaa inaan barnaamijkan oo noo socon doono oo maaragtay kaalinta haweenka iyo bulshada ah inaan maaragtay ku soo koobo anigoo dib uga hadli doona qurbaha iyo markii la tagay iyo haweenka Soomaaliyeed iyo waxyaabaha ay muteen haddii alla yiraahdo inta ka sokaysa waa walaashin Shukri Muuse Weheliye oo haatanna idin leh nabadiinada eebe ha ahaato korkiina wixii saboodii barbar istaaga idin sheegi maayo waa dhankiina haddii alla yiraahdo intaan barnaamijkan mid la mid ah mar kale ku kulmi doono dhammaan bahweynta Soomaaliyeed taageerayaashayda qiimaha iyo qaayaha leh inta igu xiran iyo inta igu soo xilmi doontaba waxaan idin kaga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh